abo alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalaha electric jecloola dukaad ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. alxamdulilah, maanta oo khamiis waxaa inoo bilaabatay 10 maalmood ugu fadliga badnaa ee sanadka dhan ku jirtay. uu nabiga sala allahu calayhi wasalam yidhi maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihina axabu ila allah min hadi alayaam, yacni alcashir. ma jirto maalmo camal wanaagsan la sameeyo oo ka khayr badan maalmahan 10 ah oo bilaabatay maanta oo khamiis ah. maadaama ay saas u khayr badan tahay, uu nabigana sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay maalmaha ugu khayr badan oo camal la sameeya inay tahay. nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka sugnaatay 9 maalmood inuu soomay. kilibka maanta soo geliya ku jirto 9 maalmood inuu soomay ay ku jirto. anigana waxaan rabay inaan nabiga ku daydo soomo, laakiin waxaa soo gashay beri oo jimco. dad qaarkooda waxay ugu dhaheen jimcaha ma soomi kartid, maxaa sameeya? walaalayaal, saan hore u sheegay, nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday 9 maalmood inuu soomay. 9 maalmood hadduu soomeen macnaheeda shaki la-aan waxaa soo galay hal jimca ama 2 jimca ku jirtay. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maalintii jimcaha la gaaray ma dhihin jimcaha la gaaraa waa afura, ma dhihin. nabiga sala allahu calayhi wasalam maalinta carafo haddii kusoo aada jimca kusoo aada yaa la soomin ma dhihin. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiduu noo sheegay 3 maalmood bil walba in laga soomo 3, 10, 14, 15 jimca haddii kusoo aada yaa la soomin ma dhihin. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiid kale wuxuu noo sheegay soonka ugu fadli badnaa inuu yahay soonka nabiyullahi daawud, kaana yasuumu yowman oo yuftiru yowman. maalinuu soomi jiray, maalin waa afu jiray. macnaheeda waxaa waa ayi qof oo caqli leh, macnaheeda waxaa waa jimca inay kusoo aadayso. intaas axaadiid markii laisku daro waxaan ka faa'iidaysanaynaa jimcaha in la soomi karo, bannaan tahay oo la soomi karo. intaasaan ka faa'iidaysanaynaa. axaadiidta kusoo aroortay soonka in la soomi karin maalinta jimcaha raba inaan kuu sheego. naha nabiy sala allahu calayhi wasalam, nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu nahyey, wuxuu diiday, wuxuu reebay jimco kaligeed in la soomo sabab la-aan ah, ilaa an yakuuna yowman qablahu aw yowman bacdah. xadiid kale nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay laa taxdunuu leylata aljumca biqiyaamin min alleyl. habeenka jimcada ha ku khaas yeelina qiyaam kaligeed, maalinta jimcahana ha ku khaas yeelina soom. ilaa fiiri xadiidka qeybtiis dambe, ilaa inuu yahay soon aad soomi jirteen. soon 3 maalmoodaa soomi jirtay kusoo aaday, 9 maalmood arabti inay soontaday kusoo aaday, maalinta caashuuray kusoo aaday, 6 maalmooday kusoo aaday, soon sabab leh kusoo aaday. waa bannaan tahay. bal xadiid kasii saxiixsanaan kuu sheega. nabiga sal alla alay wasalam xaaskiisa juwayriyo arkay oo soontay maalin jimco. markaasuu yidhi shalay ma soontay? maya. berri ma soomaysaa? maya. iska afur u dhah. markaas waxaa la diidaya marka waa soon keligiis maalinta jimco oo sabab la-aan ah. mar walaalayaal, mar khayr allah idin siiyo. qofkii raba inuu soomo soon bilaaw maalinta jimca. haddaa ratid bilaaw, haddaa maanta bilawday wad, haddaa jimca ratid inaad bilawday bilaaw. almuhim soonka jimcaha la diidaya waa soonka sabab la-aanta ah. hadda waxaan u malaynaa waa fahamtay maalinta jimcaha in la soomi karo hadday sabab leedahay. soonka keliya la diiday maalin jimcaha waa kaligeed, waa suuxi waaga ii bari maalin jimcaha waa sooma bas. maxaa u soomaysa? inaan soomo rabaa. may saas ma u shaqaysaa le marka isniin iyo khamiis oo kale soom waa soomaale, laakiin jimca kaligeed sooma samayn kar. taasoo kale waa tan la diidaya. laakiin soonkan oo kale waa la ogolya. khayr allah ku siiyo. waxba yaa la welwelinin, waxaas dhag ha u dhigin. axaadiista dhan aan kuu sheegay nabigay ka sugnaatay. marka insha allah tacaala haddaa shalay bilowdayna wada soonkaaga, haddaa rabtid inaad berri bilowdidna wada soonkaaga, haddaa maanta bilowda rabtid inaad sii wato wada soonkaaga. almuhim jimcaha waa soomi kartaa haddaa maalin ka hormarsiinaysid ama maalin ka dambeynaysid. ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiinaya 10 dad ka faa'iidaysta allah nagu daro. aamiin.